madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin. Labada madaxweyne waxay ka wada hadleen dhibaatada ka taagan marinkaasi Gaza iyo duqeyntii ugu dambeysay ee Israa'iil u geysatay dadka Falastiiniyiinta waxba galabsan ee ku nool marinkaasi Gaza. wasiirka caafimaadka ee dowladda Falastiin ayaa sheegay tirada hadda inay marayso 6 qof ay ku jiraan 14 ciyaal. sidoo kale wuxuu sheegay inay 300 oo qof ay dhaawacmeen duqeymaha ay ka geysanayaan diyaarada Israa'iil marinkaasi Gaza. wadanka Turkiga waa wadanka Islaamiga koobaad ee aqoonsada Israa'iil taariikhdu markay 1949 inta kadib 2010 ayuu burburay xiriirkii iyo aqoonsigii ka dhaxeeyay labada wadan markii ay caburintii dhibaatayntii iyo dilitaankii ay u geysanayeen dadka Falastiiniyiinta ee ku dhaqan marinkaasi Gaza iyo dhulka barakaysanba ay sii kordhiyeen. isla sanadkaasi waxaa dhacday doontii marmara wadoon laga leeyahay wadanka Turkiga ayay si badheer ah u toogteen ciidamada laga leeyahay wadankaasi Israa'iil. doonta marmara waxay siday caawimaad iyo dad shacaba dadkaas oo ololeynayay xornimada Falastiin, taasoo markii dambe Israa'iil ku qasabtay inay magdhow ka bixiso dadkii ay leysay oo ina siiso familiga ay ka dhinteen. wasiirka difaaca Israa'iil kaasoo loo yaqaano Gandis ayaa sheegay inay bilaabeen duqeynta gelin hore ay ku bilaabeen marinkaasi Gaza, sidoo kalena ay sii wadi doonaan duqeynta ay u geysanayaan marinkaasi Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu sheegay inay maanta iyo shalayba ay duqeyn adag u geysteen Hamas iyo Islaamic Jihad, sidoo kalena ay sii wadi doonaan duqeynta ay u geysanayaan. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka wada hadlay dhibaatada ka taagan marinkaasi Gaza. labada madaxweyne waxay isku raaceen in ciidamo nabad ilaalin loo tiro marinkaasi Gaza kuwaasoo Falastiiniinta ka ilaaliya Israa'iil. sidoo kale waxaa laga yaabaa wadamo badan inay ka qayb qaataan sida wadanka Qatar, Algeria, Malaysia iyo wadamo kale sida wadanka Kuwait. dowladaha isku magacaabay dowladaha midoobay ama loo yaqaan US ayaa sheegay inay u soo magacaabeen diblomaasi sare kaasoo u qaabilsanaan doona nabadeynta labada dhinac waa Hamas iyo Israa'iil. waxaa laga yaabaa inuu noqon doono maqaarsaar kaasoo wax badan ka dari doonin dhibaatada ka taagan halkaasi, taasoo aad u sii kordhaysa. ugu dambeyntiina madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha wadamadan sida wadanka Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Kuwait, Iran, Algeria iyo wadankaasi Ruushka. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayay ka go'an tahay in xal waara laga gaadho dhibaatada ka taagan marinkaasi Gaza, taasoo mid soo noqotay waqti dheer. daawadayaal waxaan idinka haynay daafaha dunida caalamka waa naga intaan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa kuu diidaya inaad markaba subscribe noo saarto, like gambaleelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan.